maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xukuntay wariyaal oo kamid ahaa wariye Maxamed Cabdi Cali oo kamid ah wariyaasha ka howlgalay idaacadda Risaale oo muddo ku dhow 2 bilood ku xirnaa xabsiga dhexe ee Xamar. xafiiska xeer ilaalinta qaranka oo soo gudbiyay kiiska loo haystay wariye Maxamed Cabdi Cali ayaa qarin idaacadda Risaale ay raaligelin ka bixisay kiiska wariyaha, sidaas daraadeedna marka loo eego dambiga loo haysto wariyaha uu fudud yahay oo go'aanka maxkamadda ay ku kalsoon yihiin. waxaana maxkamaddu wariye Maxamed Cabdi Cali ay ku xukuntay ganaax lacageed oo gaaraya $500 iyo muddadii uu xirnaa. xubnaha kale ee la xukumay ayaa kala mutaystay ganaaxyo lacageed oo lagu kala riday Cabdimaalig Yuusuf Maxamuud oo ah milkiilaha idaacadaha Shabeelle Sky oo lagu xukumay inuu bixiyo $10,000 iyo muddadii uu xirnaa. agaasimaha idaacadda Sky FM Maxamuud Maxamed Daahir Carab oo lagu riday ganaax ah $2,000 iyo wariye Axmed Cabdi Xasan oo ka howlgalay idaacadda Shabeelle oo lagu xukumay $500. halka wariye Maxamed Bashiir Xaashi kiiskiisa dib loo dhigay maadaama gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Xaashi Cilmi Nuur uu sheegay in kiiska loo haysto wariyahaasi uu yahay mid la xiriira dhinaca ammaanka oo loo baahan yahay cadeymo badan. xukunka kadib ayaa waxaa arrintaasi soo dhaweeyay qaar kamid ah wariyaasha ka howlgalay idaacadda Risaale oo muujiyay sida ay ugu faraxsan yihiin in wariyaashan ay dib u helaan xorriyadooda iyagoo ku baaqay in la sii daayo wariyaha wali xiran. bismillaahirrahmaanirrahiim. anigoo Xasan Cabdi Axmed madaxa shaqada shaqaalaha idaacadda Risaale waxaan aad ugu faraxsanahay in xorriyadiisa uu dib u helo wariye Maxamed Cabdi Cali oo muddo ku xirnaa xabsiga dhexe. runtii waa waxa aad loogu farxo in wariyaasha kale iyana helay xorriyadooda sida wariyaasha Shabeelle iyo Sky u shaqeynay iyana in la soo daayo xorriyadooda dib ay u helaan. saxaafadda Soomaaliyeedna waa waxay aad ugu faraxsan tahay. saxaafadda ayaan ka mid nahay. xorriyadda saxaafadna waa wax ugu muhiimsan oo qofka saxafiga uu ku shaqeyn karo. marka Risaale ahaan maanta dareen gooni ah ay noo leedahay inaynu dib u helno xubin muhiim ah oo naga tirsanaa. magacaygu waa Daahir Aadan Cali, waxaan ka tirsanahay shaqaalaha idaacadda Risaale. waxaan soo dhaweynayaa siideynta wariye Maxamed Cabdi Cali oo maxkamadda gobolka Banaadir ay maanta ku dhawaaqday in wariyaal ka tirsan Sky iyo Shabeelle iyo wariye Maxamed Cabdi Cali oo idaacadda Risaale ka tirsan xorriyadooda dib u helaan. waxaan sidoo kale jeclaan lahayn haddii aan ahay mid ka mid ah wariyaasha ee ka howlgala dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho in la sii daayo wariyaasha kale ee u xiran dawladda. waana soo dhaweynaynaa. magacaygu waa Bahji Axmed, waxaan ka tirsanahay shaqaalaha idaacadda Risaale. aad baan ugu faraxsanahay in dib xorriyadooda ay u helaan in suxufiyiin in kala tirsan idaacadda Shabeelle Sky iyo Maxamed Cabdi Cali oo ka tirsan idaacadda Risaale. aadaan ugu faraxsanahay. anigoo ah Xuseen Nuur Maxamed Garaad soo dismadiisa muddo 2 bilood kadib in xorriyadiisa uu helay aadaan u soo dhaweynaya. sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa wariyaasha kale ee maanta xorriyadooda helay ay ka kala shaqeynayay Sky iyo waliba Shabeelle. agaasimaha idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho Mudane Maxamed Cabdiwahaab Cabdullaahi oo isna ka hadlay xukunka ayaa sheegay in idaacadda Risaale ay soo dhaweynayso dib u helidda xorriyadda wariyaha idaacadda ka howlgala iyo wariyaasha kale ee idaacadaha Shabeelle iyo Sky. maamulka idaacadda Risaale haddii aan nahay guud ahaan ayadoo saxaafadda aan ka mid ahayn haddana waxaa nooga jiray Maxamed Cabdi Cali oo ka mid ahay ragga eedeysnay. waxaana lagu xukumay $500 oo ganaaxa iyo xilliga uu xiray. marka waa ku faraxsanahay in la sii daayo oo xorriyadiisa uu dib u helo. kulley maxkamadda xukunka ay ridana waa ku qanacsanahay. waana soo dhaweynaynaa. waxaan raadinaynaa waxay ahayd in aan si cadaalada uu ku helo wiilkaas wariyaha xukun isla markaasna oo xorriyadiisa helo cadaalad ay ku maro. marka waxaan ku faraxsanahay in maanta oo xorriyadiisa dib u helay xukun oo ku dhacay. waana ku qanacsanahay xukunkaas. waana soo dhaweynaynaa. waa markii ugu horeysay oo wariye ka howlgalay idaacadda Risaale la xukumo. waxaase xusin mudan in xubnaha xafiiska xeer ilaalinta qaranka ay muujiyeen in Risaale ay martay wadadii sharciga oo raaligelinna markiiba ay ka bixisay kiiska wariyaha loo haystay.